gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Xuseen Kaahin Xayd ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Burco waxa uu ku shaaciyay in ka xusbi ahaan u taagay in doorashadii inay qabsoonto waqtigeedii isagoo geesta kalena baaq u diray xukuumadda haatan talada dalka haysa garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sidaanyo oo ugu baaqay inay doorashadu waqtigeedii qabsoonto isla markaasna aanay ku keenin wax istabamarina isagoo intaasi ku sii daray gudoomiyuhu inay xukuumadda haatan talada dalka haysa ay wax ka qabato dhalinyarada rabshadaha ka samaynaysa muddooyinka u dambeysaba gobolada dalka isagoo ka hadlaya gudoomiyuhu arrintaas iyo arrimo kaleba waxa uu yidhi sida tani waxaan kula diyaarinahay doorashadii inay waqtigeedii dhacdo xukuumadduna inaanay dub u jiidin intii ay dub u jiidi karaysay dub ay u jiiday laakiin imika laga bilaabo anagu ma ogolin maalin ma ogolin saacad ma ogolin second ma ogolin 26kii oo bishii lixaad ee uu ku dhawaaqay madaxweynuhu uu yiri maalin lagu dari maayo madaxweynaha arrinkii uu ku dhawaaqay ummadda reer Soomaaliland uu u sheegay ayaanu uga fadhinaa looga fadhiyaa xisbiyada mucaaradka ay uga fadhiyaan musharaxiinta reer Soomaaliland ee madaxweynaha u sharaxana ay uga fadhiyaan waxaan leeyahay haddii madaxweynaha go'aankiisa ka ahaa in dadka hoos shaqeeya ama ka hooseeya ama xukuumaddiisa ka mid ah inay ku dirqiyaan nin weyn oo qowl ka dhacay geed qolof ka dhacday baa leeyahay in wax aan odaygu oranin la marmariya oo la yiraahdo waxa weeyaan duba loo dhigay ama halkan ay maraysa maaha maalintii uu ka dhawaaqay ay muddo ku sugaysa caalamkuna taa ayuu ugu ilaalinayay inuu ogeey waxaan leeyahay xukuumaddu bariyaha waxay ku boorkaasay wax qabad wax waa la qabtay xaqiiqdii waa la qabtay oo xukuumaddu waxay qabatay waa la qiraa mujtamaca reer Soomaaliland way ka qayb qaateen cashuur ku hadhayna ma jirto oo ku baaqata tii hore looga qaadi 10 laabkeed baa laga qaaday laakiin waxa la qabtay iyo waxa qabyada baa badan waxa adduunyada la qaado ama cashuurta la qaado ama dakhliga dawladda soo gala ayaa ka badan waxaan leeyahay halka aad kaga faanaysaan maalin walba halkana dhagax baa la dhigay halkana dub baa la dhigay halkana waa la sameeyaa war kuwa hore wax tar kale ee qabyada ina dhamaystirtaan baa wanaagsan waxaan leeyahay xukuumaddu canuufteeda dub ha uga laqo muddo kordhin la kordhiyo oo waqti la kordhiyo hore inoo soo daashay waxaan leeyahay taas ma aha mid maanta loo fadhiyo caalamkuna inooga fadhiyo inaguna oo fadhiyo xisbiyada mucaaradka ay u fadhiyaan ninownaha ku talageena hawna feedhan hawna fadhiyo waxaan la arki doonaa waqtiyada inagu soo beegan ay doorashadu xilligeedu soo dhawaato sida ay caalamku inaga yeelay sida inuu ka yeelo iyo wixii aanu ku ballan qaadnay ayuunbaa la isbarbar dhigay waxaan leeyahay xukuumadda waxaan kaloo ku waaninay war wax aan loo dirin oo ama aan waxba ka dhaweyn iyo dhagax inta lagu daalay war amnigan lumay ee magaalooyinka dhexdiisa caruurta yaryar ee gaangiska ay ka dilaaceen dhaqan xumayska wada boobka wada nabadgelyo darrada wada inay ka shaqeysaaba fiican intay maalinba 10 dhagax meel la qabanayso taasaa ka fiican hantida waa Maxamed Cali Axmed Kaabe waraga telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Burco.